طبعا مدلوق ومد كميدا قبائل الصوماليات ereyga madaluug anigu markaan isirbaarayay oo erey bixintiisa aan raadinayay waxay ila muuqatay ama aan u arkaa iyadoo dad kale oo iga fakar duwan ay jiri karaan inuu yahay madal la oogay madasha waa meelaha dadka ku kulmaan lagu soo dhaweeyo oogidna waxa weeye waa qurxin marka waa ninkii adigo haddaan afsuuqdi ka dhigno ninkii masraxa qurxiyey marka tiyaatarka ninkii qurxiyey meeshii lagu soo hiranayay ninkii qurxiyey weeyaan meel la sugi yimaado marka waa madal oog waa ninkii madasha yani quruxda badan diyaariyey madaluug marka waxa uu ka mid yahay 4 ilmo direed oo odayga direed dadku inay fahmaan baa fiican waxaan ka hadlayaa barnaamij odayga direed haa waxaa kaloo rabaa inaan ku daro waxyaabo dadku inta badan ka sheekeeyaan laakiin mala awaal aan maanta dadku sheegi doono odayga direed 4 inan buu dhalay sida aanu taariikhda ku hayno walow dadka qaar ay yiraahdaan 114 inan buu dhalay laakiin taasi waa inta wax baaraynay arrin suurtagal ah aniga shakhsiyan ila ma aha 4 waxay kala yihiin madooba dir oo ah beesha ciise mahadir oo ay ka mid yihiin sida isaaq oo kale iyo biyamaalka iyo reero badan oo kale ana xinaf tiraha u badan maxamed xinaf tiraha u badan iyo madaxweyne dir oo de akishaha iyo gurgulaha iyo layilaha iyo dad tira badan iyaga yihiin iyo madaluuga oo aad iminka su'aashaada weydiisay madaluuga marka waa 9 inan ilmo madaluug waa 9 madaluug waxaa ka mid ah gadabursiga oo ah cali madaluug 9 madaluug marka waxaa ka mid ah علي مدلوق أو قدر بورسيا إسحاق مدلوق أو رال إسحاق لو يقان أحمد مدلوق أو رال أحمد لو يقان حسن مدلوق أو رال حسن لو يقان إراب لبن مدلوق أو إمكان لوكان أو رمضان أنت بدن حوج جيد دجن جيل واغلة مدلوق أي أصل جرو أو سجن دجن هذا يبنباس يجرجر ينواحي قاعد دجن وأنت بدن لقيب نكتر سن كلن كان أو رمضان كتيرا مثلا لا مدلوق أي جلسنا أو qaybna dhinaca Rwanda ayuu jiraa qaybna waxaana lagu sheegay Central Africa qaybna wuxuu degan yihiin qoymiyada saaxay ku jiraan marka horta guud ahaan waa 9 wiil dabadeedna ay 9 qoymiyada shirka Xasan Madluub baa jira dadka marka deegaanadooda imika aan ka hadlayo Madluugu maadaama ay saldanadii Adal Empire hogaaminayeen waxay ahaayeen yool ama waxay ahaayeen target waxay ahaayeen dad madaxooga يعني العقل لقول هذيني يعني أبسينين تي رجي عن مسلمين de حبشيدا ها dadka ay sida goonida u doonayeen waxay ahaan dadka saldanada Adal Empire haystay oo hormuudka ah marka sida saldanada loogu soo kala dhawaa ayaa wacadka iyo cadaawaduna ay u jirtay dadku marka waxay sameeyaan masaafo iyo carar iyo firxad iyo dalkooda ka baxaan deegaanada marka maanta madaluugii wali uu degan yahay kaliya waxa ka jira dhulka gadabursi uu degan yahay waliba qaybaha samaroon kaliya gadabursi iyo samaroon dadku way isku qaldaan ta nooyar fafay samaroon iyo gadabursi difference dabcan iyada lafteedu waxay naga qaadanaysaa taariikh badan laakiin soo koobaya cali madaluug oo gadabursi ah marka laga hadlayo ereyga gadabursi marka laga hadlayo dadku waxay haystaan qabiil ma waa qabaa'ilo badan oo isu tagay weeyaan oo de magacaasi wadaaga oo wada leh weeyaan qabaa'ilkaasi wuu burburay suldaankii cali madaluug oo hogaanka u hayay waa la dilay dad maqasheen gabayga ama aaraarta ama tirtirsiinta ah maqalay warlaay ma lagu waramay in cali la dilay oo cumarna la dilay oo waran dhulgal oo dhiig qulqulo waran dhul galay iskuulka xataa lagu dhigan jiray iskuulka ayaa lagu dhigan jiray Suldaan Ali oo raggaasi ninkaasi magaca ayaa lagu dilay taariikhdiisa dib baa ka sheekeyn jira qoraal baa ka soo wada wiilkiisa oo Umar ahaa oo saldanada la wareegay oo 10 cisho waxaan dhameen isagana ah oo markaa inta loo gaaray xilligii gadi garaadnimada gaaray oo u leelanaa inuu aabihii bedeli doono 10 cisho markii la caleemo saaray kadib ayaa asna la dilay marka labadoodii axankooga isku mar baa war la cunayba odagii gadabursiga cali ahaa iyo inankiisii oo asna la boqolay isku mar
ayaa la dilay oo dee xabaalahoogii gobolka gadayna ku yaalaan waan markaa ka sheekayn doonaa faraqa markaa u dhexeeya wuxuu yahay waxa weeyaan samaroon waa inan saciid samaroon 9 inan baa la dhalatay 9 inan ayaa samaroon la dhalatay samaroon waa inan saciidna waa inan daa'uudna waxaa weeye waa afar inan weeye daa'uud inta yani isagana hoos imanaysa oo la dhalatay daa'uudna waa inan xasanna 2 ayaan imanka haynaa tarankiisii xasanna waa inan cumarna waa inan cali oo ah umarkii caliga la dilay taranka maanta jooga ee dhulka gadabursiga ama samaroonka jooga waa taranka samaroonka ugu badan waxaa kusoo xiga dhulka gadabursi maanta waxaa jooga ama taranka gobe oo samaroon walaalkii ah iyo jibriil oo samaroon walaalkii ah iyo cali oo samaroon walaalkii ah laakiin taranka ugu badan maanta tira ahaan deegaanka jooga waa samaroon marka gadabursigu intii kale xagee ku maqan yihiin baa su-aasha meesha ku jirta soomaalida dali iyo daarood iyo hawiyaba markaan isu geynay oo telecoom ku sameynay 60% waa gadabursi marka taranka gadabursigu wuu maqan yahay taranka gadabursi dadyooga kale ku jiraa barnaamijyadan dambe qabaa'iladay ku jiraan dadyooga iyo dee qabaa'ilo markii la baxay yani la qaxay laga baxay meesha dagaaladii dib loo firxaday qabaa'ilo abuurmay baa jira soomaalidu dadna waxa weeyaan waa dad yani taran fog leh dadna waa dad feer tarankaasi ka dhex abuurmeen sida geedka uu laamaha uu u fidiyo ayay qabaa'iladuna u kala baxaan marka qabaa'ilo badan oo waxaa jira gadabursigii ka baxay meeshan la midoobay oo qabiil la noqday iyo kuwa iyagii hoos yimid oo magac bedeshay marka siyaabo badan baan oga faalloon doonaa madalug waxaa tiri qaybtan gadabursiga ama samaroonka waxay degan yihiin galbeedka waxaad tilmaantay gado inay degan yihiin ama ilaa ay kenya kismaayo degan yihiin ma waxay ku tageen dagaaladii dhibaatooyinkii dhacay awgeed saas ma xagga ugu qaxeen bal inoo faahfaahitaa laftigeeda qolooyinka degan iyo kuwa yihiin madalugta meesha degan waa sida hore kugu sheegay waxa weeyaan jabka marka uu dhacay meesha loo yaqaano waa garta maanta dhulka canfarta ku taal waa meeshii uu dhambaalkii Boortaqiiska duulaan badana Axmed Gurey meesha dhambaalka loogu soo diibay inuu isdhiibo waa gartaana ereygaas Axmed Gurey baa bixiyay ereygaasina magaalada magaceeda qaadatay waa garta baa la yiraahdaa meesha dabadeedna meeshaasi wixii ka dambeeyay geeridii imaamka waxaa dhacay jab weyn oo Soomaalida oo dhan ku dhacay waxayna gaal u soo ahayd dadkii saldanada markaasi hoggaanka u hayay wadada marka meeshaasi waxaa ku taala magaalo la yiraahdo Shire oo maanta dhulka Tigreega ah waxaa kaloo ka sii shisheeyay magaalo la yiraahdo Dabarwa oo iyada deegaan Soomaaliyeed waxaa ka sii shisheeyay magaalo la yiraahdo Baadama oo hadda Baadama loo yaqaan laakiin Baada waaga loo oran jiray waxaa ka sii shisheeyay magaalo kale oo la yiraahdo Shiraaro oo Baadama iyo Shiraaro waa meesha dagaalada Eritrea iyo Ethiopia hadda ka dhaceen laakiin Shiraar iyo Baade ayaa la oran jiray waxaas dhan waxay ahaayeen saldhigyo iyo deegaano ay fadhiyaan ciidamadii marka dhinacaasi shishe jiray oo aan yani qaybtaa shishe jiray waxay u tallaabeen dhulka maanta saaxo la yiraahdo dadkan saaxada oo Eritrea degan iyo Beja dadka ugu badan waa dadkii saldanadahaasi ka jabay gadabursi waa kamid ah Eritrea iyo Sudan oo xadka ay Sudan iyo Ethiopia ka leeyihiin qowmiyadda Beja iyo qowmiyadda saaxa haddaad eegto waxaa ku jira reer la yiraahdo Gaadafuur oo gadabursi ah waxaa ku jira reer la yiraahdo Daaqsamo oo iyagana gadabursi ah waxaa ku jira reer la yiraahdo Casaawrta ayaa ku jira oo awrti casayd ah waxaa ku jira reer la yiraahdo Muuse Care oo maanta Muuse Care waa jilib ka tirsan Habar Yunis oo waa Care Saciid weeyaan iyaguna marka aan ka hadli doonaa waxaa ku jira oo dhinaca kale Beeja ku jira beelaha Mareexan oo saldanada qayb ka ah beelaha Karanle oo saldanada qayb ka ah sida balow nimanka la yiraahdo oo saxawlaha ayaa ku jira dadkaas oo dhan dad isku suntan oo isku sidkan oo isle oo magac wadaago ayay ahaayeen laakiin maanta iyo waqtigan la joogo dee insurance ama caymisyo kale ayay ku kala jiraan haddaan marka usoo noqdo deegaanada Samaroon baa deegaankiisa hadda degan Axmed iyo Isaaq waxay degan yihiin bu'da gobolkan Afdheer iyo Qorraxay la yiraahdo oo dawlad deegaanka
ayay degan yihiin